halkani waa garoonka Dile Stadium ee degmada Dile gobolka Awdal noocyada kala duwan ee agabka isboortiga ay ugu soo deeqday Hooda Abiib iyo wiilkeeda Maxamed Mustafa Mahdi oo ku sugan wadanka Ingiriiska asal ahaan ka soo jeeda Dila dhalinyarada isboortiga ee Dila ay u soo direen agabkan si ay u bogaadiyaan oo ay u dhiirigeliyaan inay ku dadaalaan kaalinta isboortiga degmada Dila munaasabadani ayaa waxa dhalinyarada isboortiga kala soo qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Dila Maxamed Cabdillaahi Bila Chesto kamida dhalinyarada ugu firfircoon degmada Dila injineer Axmed Naasir Mawlid Cabdi xogayaha degmada Dila Muxiyadiin Cabdi Cali barbilo waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Dila Maxamed Cabdillaahi Bila Chesto injineer Axmed Naasir Mawlid Cabdi iyagoona uga mahadnaqay Hooda iyo wiilkeeda agabkani isboortiga ay u soo direen dhalinyarada degmada Dila waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sidan aygu Maxamed Cabdillaahi Bila gudoomiyaha dhalinyarada degmada Dila waxaan jecelahay inaan idin la wadaago wax idin ka farxid doona kulay waxa weeyaan dhalinyarada Dilaadna ka farxiyay waxaanan hore u arag ba waxa weey kulay noo hirgalay taasina waxay ku timiday wada jirka iyo isqabsiga iyo isku mid ahaanshaha degmada ka jira iyo dhalinyartii oo unit noqotay oo maanta aan waxa weey mudooyinkii hore halkay joogeen aan joogin alxamdulillah rabbil caalamiin marka koobaad ilaahay baan mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa cidii kasbatay amaantan iyo waxa weey mudnaantaba cidaas cid kale ma aha waa Hooda Abiib oo joogta Ingiriiska iyo inankeyga Mustafa Maxamed Mahdi oo si kal iyo laaba nooga qayb qaatay ama waxa weey dhiirigelintan iska leh ama farxadan dhalinyartu ku reereynayso maanta ku amaanan waxaan leeyahay bartii aad taagneydeen waad ka soo baxdeen booskiini waxa iyo wax ka badan oo idinka rajaynaynaa Dila loogama baran nin dhalinyaro ama gabadh macnaha waxa weey kamida dadka ka soo jeeda Dila oo kala qayb qaadata dhalinyarada daayarta ah in ay macnaha waxyaabaha qaar ay uga dhigto surprise oo ay noqonayso dhiirigelintaas oo waxa weey ka kooban garamaan kubado qalabkii alamiitada waxa weey gacmihii ay goolaha yuhu gashanayay dhamaan ma soo koobi karo jaysadihii kubadihii waxa weey koobabkii waa waxaan hore loo arag banaan waxa weey hadalkayga ku soo gunaanada kuna soo afneeraya waxa kaloon fariin u diraya Dila waxa ka soo jeeda marka waxa weey dad ahaan laga warramayo dad badan oo ballaaran oo baaxad leh laakiin tayadoodu yar tahay message-ka waxaan u dirayaa qof kasta oo keer garaynaya degmada Dila horumarkeega waxaan leeyahay ha lagu daydo Hooda Abiib iyo inankeyga Mustafa Maxamed Mahdi oo ah dad la tilmaami karo ama waxa weey tusaale u noqon kara dadka kale maqan waxaan macnaha waxa weey inta ku soo koobaya mahadnaqa ay kasbadeen anoon macnaha halkan ku soo koobi karin haddaan maanta dhamayn karin waxa kale oo message u diraya degmada Dila hore loogama helin ama dhiirigelin ku saabsan macnaha dhalinyar hormuuda oo tusaale u noqota dhalinyarta kale maanta waxaan ku jirnaa muddo bilaba training baan ka wadnaa waxa weey garoonka weyn ee Biroole iyo garoonka Roogaaba waxa koos gareeyay oo sababteeda leh Hooda iyo waxa weeyaan Maxamed Yare abti waad mahadsantaan leenahay anagu dadaalkayga waan la bilaabaynaa marnaba nasan mayno fariinta wehelisa waxaan u dirayaa maamulka isboortiga ama wasaaradda isboortiga waxay gabtay waxa weeyaan hawshii loo idmaday degmada Dila ma aha degmo yar waa degmada aad u jeedaan iminka dadka inamada aad u jeedaan waa inamadii haldoorkii waxa jirta laba tiim oo kale oo ku xiga oo iyagana uu training ku socdo waxa weey kooxaha magaalada hadii maanta waxa weey dhex gal la isira kooxaha ka dhisan aad u badan yihiin wali lama hayo intay soo dhex taageen war maxaa macnaha waxa weey dhalinyar Dila joogtay ismay weydeen gobolka waxaan leeyahay bal horta waxa weey de xarbaninkii waxa weey uu agaya loo uray gobolka ka bilaabayna dadaalka koobaad waxaan leenahay isku duwaha gobolka waxa weey Awdal waad gabtay hawshii lagu yidmaday in ay Dili macnaha waxa weey Awdal kamid tahayna iyo inaana kamid ahayna adan ka suganay inaad nooga jawaabto degmadu active kama aha gobolka Awdal waxaan jecelnahay in uu sida ugu dhaqsaha badan hawshiisa oo qabsado waxaan aad ugu mahad celinayay Hooda Abiib oo aad iyo inankeeda Mustafa Maxamed Cabdi Mahdi oo lagu soo deeqay qalabka sportska aad arkaysaan aan hagan aan ku sugnay muddo intan aan training kala siinay ardaydan groupka sportska oo A B C bas ku jira aan doonaynay inaan hadii jeer
markaan soo gaarsiiyaan deeqaha nimanka dadka qurba joogti anaguna sidii cadeyna oo ilaahay nagu ogyaan u soo bandhigno dadkuna aan si noogu soo egmadeen anaguna u gaarsiino waxay kamid tahay markaa inaan is aaminaa haddaan iyaga maanta anaguna inta naloo soo dhiibaan guryaha ku qufulano waxay ka dhigantay inaan xoolihiin naloo soo dhiibaan aanan gaarsiin baahidii magaalada ka jirtaan laga qabtirin markaan wax cadeyna in xoolihiin lagu soo dad ilaahay lagu soo aaminay ee hooda iyo wiilkeeda nagu aamineen inaan bartaan soo dhignay oo aga media ka sheegnay wixii soo gaareen aad baan ugu mahad celinaa anaguna aan gaarsiin doono dadkii nalagu soo dhiibay haddii ilaahay dhaado waxaa kan aad iyo aad ugu mahad celinayaa kulley mar walbaan dhalinyaraan annaga is abaabulno oo koobabka qabsana wax aan kaliya aan taageero ka helnaa waa dowladda hoose degmada Dila oo had iyo jeer iyadu wixii karaankeeda naga caawisa laakiin wax kale oo sports la sheega iyo qurba joog iyo dhalinyaro kale oo had iyo jeer la caawisa ma jirto dowladda hoose inta dhalinyarada ay jabadooga nusaacoga isku darsadaan ayaa koobabka adarkasaan qurux badan sanad walba Ramadaan kasta iyo xilli kasta lagu qabtaa kadib geestiisa isna mikrofoonka waxa ka daba qaatay xogayaha degmada Dila Muxyidiin Cabdi Cali isagoona bogaadiyay hooda iyo wiilkeeda agabka ay soo direen sidoo kalena dhalinyarada degmada Dila ee sportiga bogaadiyay waxay hadaladiisu isna u dhignaayeen sidan kulli saad arkasaan maanta munaasabada aynu u fadhinaa waa munaasabad farxadeed waa qaybinta agabka halka yaala oo loo qaybinayo marka ciyalka degmada marka runtii waxa maamuus iyo sharaf iyo mahad celin mudan dhalinyarta soo agaasintay iyo cidda soo bixisay waxaan aad iyo aad runtii ugu mahad celinaa hooda abiib iyo inankeyga Mustafa Maxamed Mahdi oo soo agaasimay oo soo diray markaa waqti maxaad dhalinyartan dhiirigelinta u soo sameeyay aad iyo aad baan ugu mahad celinaa runtii waa wax xusuus mudan oo in la xusano mudan sidoo kale si markaa la inigu soo dhiirto oo la inigu soo hirto waxaan markaa ini faranaa inagana inaad markaa aydan ka bixin saaxadda markaa ciyaaraha aydan ka bixin oo ay idinku dadaashaan kadib geestiisa isaguna waxa mikrofoonka ka daba qaatay Mustafa Maxamed Mahdi tababaraha dhalinyarada degmada Dila waxa maanta halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarta dadka soo abaabulay xafladda aad iyo aad ka quruxda badan leh ee dhawaantanagana soo maamusay waa hooda abiib iyo Mustafa Maxamed Mahdi oo aad iyo aad si ballaaran halkan uga mahad celinayo oo sida doorka arsaanade waxa agabka dhalinyar lahayd ee sportska anaga nagu soo deeqay anaga dhawaantii inta in ka badan aanu ka filano maadaama in kastoo aanu ka helin dad qurba joog badan oo ka tirsan degmadiyadii iyo dhankii sportska hadday noqoto aanan inta wax ka lamid ah aanu ka helin insha Allah waxaan rajeynayaa inta in ka badan aanu ka heli doono iyo waxyaabo kala fara badan annagu ku hadlayaa dhalinyarta degmada Dila sportska waxaan ka wasaarahaadna u sheegi lahaa inay gabeen doorkooda ay ahaayeen dhalinyartan ku lahayn maadaama daan koob iyo wax walba anagu saabino oo anagu shakhsiyaanteeda aan qabsano halkii iyaga looga baahnaa iyaga wax walba noo qabtaan oo iyagu hor kacaan oo hormud noo ahaadaan ayagu deetoodii gabeen insha Allah iyagana waxaan rajeynayaa inay dhalinyarta ogaadaan oo sportska iyo heerku marayo mar walba ay la socdaan story xiriir noo qabtaan aan u baahanay mar walba taas ku dhiirigelinaya waxaan aad u muuqayaa dadka sharafta leh maamuuska leh alaabtaada kasaniya agabkan ugu soo maadceliyay aad iyo aad baan dharkaan ugu mahadnaqaynaa sportiga oo Shaafici Cisqi degmada Dila ee gobolka Awdal